xildhibaan naasir xaaji cali shire oo ka tirsan golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta shir sharaa'id oo ku qabtay magaalada Berbera ayaa waxa uu kaga hadlay ama uu ugu jawaabay madaxweynaha dawladda awoodda daran ee ka talisa magaalada Muqdisho arrimo ay ku duureysay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo guud ahaanba dawladda Muqdisho habeen maalinba ay halgan ugu jiraan sidii ay u dhibaateyn lahaayeen oo hagardaamayn lahaayeen xukuumadda jiritaanka iyo madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo soo qaatay amuraha u dambeeyay in ay doonayeen in ay cunaqabatayn dhaqaale ay ku sameeyaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in sidoo oo kale ay marwar faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid tahay dhinaca qadiyadda madaxbannaanida oo ay haatana ay ku jiraan sidii caruur yar oo makasta Muqdisho loo goyn lahaa dhaqaale badan lagu isticmaalayo si loo tuso ama rayir caalamka loo majaro xabaabiyo dadkaasi inay ka soo horjeedaan jiritaanka iyo madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. xildhibaanka ayaa waxa uu sidoo kale arrimahaasi qaar kamid ah ku eedeeyay inay iyana ku lug leeyihiin dad u dhashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo siyaasiyiin ah waxaana hadaladiisi kamid ahaa waxaan leenahay waxaan si cad oo cod ku sheegay madaxweynaha Soomaaliland shalay maanta maaha carabta waxay taada lifaat maat wixii shalay tagay way dhinteen waxa maanta taala inaan wada hadal cusub oo rasmi ah ay Soomaaliland iyo Soomaaliya wada garan iyagoo taagan halkay 1900 ka taagnaayeen oo laba dawladood oo laba gumaysta ka haystay oo labada xoroobeen waxa laga baahan yahay inaad qaado talaabo geesinimo leh oo aad ku keeni kartid inaad ku soo hor fadhiisato ma inaad ka wareegtid maha kolba in iyaga Soomaaliland daba socoto oo meesha ka degtaba aad hada ka daba geyso talaabadii qaado in talaabo kale ka daba qaado waxa loo baahan yahay in la timaado aqligii geesinimo leh oo aad la timaado in Soomaaliland ku hor fadhiisto wax xaqiiqooyinka jirta ka wada hashabada dunyada dawad ka baqaysa way fulay baa tahay farmaajo waxa leeyahay farmaajo fulay baa tahay wad ka baqaysa in aad khafaysto Soomaaliland waxa la doonayaa qaado talaabadii geesinimo lahayd oo qaaday Mala Zanaawi oo kale oo ku sii daayay Eritrea waxa laga yaabaa in qaado talaabadii geesinimo lahayd oo qaaday Umar al-Bashir oo ku sii daayay Koonfur Suudaan waxa laga baahan yahay qaado talaabadii geesinimo lahayd oo qaaday Anwar Saadaat markuu Israa'iil dhaqaajin kar waayo oo taayif ka dhigay oo aan khiyaamooyinka aad wado aad hoos dushana ka leedahay wada hadal baan doonayaayay Soomaaliland doonayaayay Soomaaliland waa dad geesiyaal wada wanaagsan iyo inaad leedahay ma noolaan kartaan waxa ma noqon ilaa anu idin fasaxmayaan taama shayba accountry baad waan la wareegaya dadana waxa tiri arimo dhoofsan kartaan maantii ku horeysay waxa tiri lacagta Soomaaliland adduunka siiyo ilaa aniga la soo maskar macnaheedu ma ahayn ma noola anigu aan noolaado idinku ma noolaansan waxaan leenahay taa ma yeelino kana aqbalmeen ninka la Ismaaciil Buuba hadilmiyo أنا واحد نبيحي هدلميو مقع إسماعيل بوبان كدين وعنايا إسماعيل هدلميو ما كسوق وسطي إن منكي أصاحب الله هيدا كسوق تورين هي سوق عصر السومالي أنت كأجو هو يكسر نقطة تذكر السومالي يكسر دويين سن نبغى يكسر دويين وادكتي هذا المانط واحد كبر جذوه دي ناس كدرته واحد كبر هذا المانط إن شليت سلا هذا السومالي نان حوله لقدر فينيا حق عطان ورقة الصومالية iyadoo 8 sano Soomaaliya jirtay oo 8 sano xoolaha barbar ka dhoofa ay ahaayeen xoolo ku baxa warqad isla baxa xildhibaan naasir xaaji cali shire ayaa sidoo kale waxa uu madreer Soomaaliland u soo jeediyay inay ku faraadeegaan xurriyadda iyo madaxbannaanida dalkooda hooyo oo aan marnaba laga faramuroojin masiirka dalkooda isagoo ka warramay sidoo kale halgalkii qalaada iyo dhibaatooyinkii loo soo maray xurriyadda iyo madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Salaan Xariir Sheekh Cusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera